ururka tallaabada iyo horumarinta geeska Afrika ee loo soo gaabiyo hadow fadhigiisu yahay dalka Ingiriiska ayaa deeqo agabka waxbarashada oo isugu jira sariiro iyo furaashyo loogu talagalay dugsiyada boardingka ee deegaanada Baladhiig Qoryaale iyo dugsiga agoomaha oo dhismihiisu ka socda Burco soo gaarsiiyay magaalada Burco ee gobolka Togdheer. munaasabad kooban oo loogu kala dirayay deegaamada Baladhiig iyo Qoryaale kaalmada deeqdan agabka waxbarashada ayaa goobjoog ka ahaayeen maamulada deegaanadaasi xildhibaano ka tirsan deegaanka Burco iyo wakiilada ururka haad. سعيد علي باندي انجنير فارح حسن oo ka wakiila ururkaasi ayaa uga mahadnaqay isla markaana sheegay in agabkani gaari doonaan deegaanadii loogu talagalay agamaana konton sarood konton farash balansiinaya waxaan ku darayaa baabuurkan hadda imika marka intaas laga rabo agama wuxuu tagay Qoryaale oo qaadiya alaabtiisi baabuurkan wuxuu geenayaa Baladhiig qolka kastaalkeeda baa lagu geenayaa. xildhibaan Maarig Yuusuf Cilmi Bidhe ayaa isaguna tibaaxay in deeqdani tahay mid wax weyn ka tari doonta baahiyaha waxbarasho ee deegaamadaasi iyo dugsiga agoomaha. haad wuxuu maaragtay ayaa alaabta soo dirtay halkan joognaa gudoomiyaasha deegaanada Qoryaale iyo Baladhiig Bila Jaamac Muuse iyo Cali Faarax Cali ayaa cadeeyay inay gudoomeen agabkan waxbarashada isla markaana deegmo kasta u heshay 100 sariirood iyo 100 furaash halka dugsiga agoomahana ay kaga soo hagaageen 50 sariirood iyo 50 furaash. waanaanu la wareegnay oo waan ka gudoomay Saciid Cali Baando iyo injineer Faarax Xuseen 100 sariirood iyo 100 furaash oo waxaan la yaqaan mas'uuliyiin ahaan iyo gudoomiyahan iyo dhamaantii mas'uuliyiintaba sidii loogu talagalay inaanu dadkii lahaa iyo ardaydii aan u gaarsiino. deeqdan agabka waxbarashada ayaa isla markiiba u kala baxday deegaanadii loogu talagalay iyadoo mas'uuliyiintuna ay ballan qaadeen inay gaarsiin doonaan goobihii loogu talagalay. Cabdi Faarax Cabdilaahi, Burco.